muddada hadda koobneed 6 bilood waxaan ahay gudoomiyaha Efsan. Dat was een bewogen 6 maanden. Oo wax badan heel veel uitdagingen ku jirtay. Oona maxaa la lahaa shaqo badan noola igmaday. Aan isleeyahay inaan 6 bilood nagu yareed. Laakiin inaan arkay inay uitdaging badan jirto binnen Efsan. Achtergrondkayga waxaa waaye Groningen waan deganahay muddo 30 sano ka badan. Ik ben arbeidsdeskundige. Gemeente waxaan u shaqeeyaa Westerkwartier. Waxaan ka ahay arbeidsdeskundige. Maxaan sameeyaa dadka oo shaqaalahan toetsgareeya. Ik ben senior adviseur. Muddo hadda 17 sano aan ka shaqeynayaa. Dat betekent dat ik weinig ambitie heb. Dus dat betekent dat ik niet veel wisselijk hou. Wat goed is moet je houden. Maar als ik terugkom bij Efsan, wat ik zie, waxay igu beweegreden inaan Efsan u shaqeeyo waxaa waaye anigoo yaraan u shaqeyn jiray Stichting Somalisch Groningen aan voorzitter ka ahay. Kabacdina maxaa la lahaa waxaan jecleystay in aan overkoepelde organisatie Somaliland u shaqeeyo. Markasta aan arko inay Soomaali ama een politica naga hadlaayo ama maxaa la lahaa TV nagala hadlaayo altijd negatief beeld. Ik schaam me voor om op dat moment Somali te zijn. Maar ik ben super trots om Somali ook te zijn. Dus mijn beweegreden waxaa waaye inaan ka shaqeyno Soomaalida inta wax ku baratay ama ku dhalatay oo u jeedna maanta Xaawo Ismaaciil oo wax ku barteen af Soomaaligoodana fiican yahay inaan dadka tusno inay dhalinyaradaas nagu dhex jirto positief beeld inaan tusno holan ayna jiraan dadkeena intaan nahay kooban 40,000 aan shaqo badan qabano meelo fiican ka wada shaqeyno dhaqtariin nagu jiraan media ku jiraan dad shaqooyin badan qabta laakiin markasta Holandeeska naga hadlaa inaan nahay dad waxba noola arkin mijn maxaa lahaa ideale ambitie markaan Efsan dhahayno waxay noqon doontaa meel inaan ka shaqo badan inaan qabano Soomaali kor u qaadno dad isku duuban aan meel annaka aan leenahay oo Soomaalidii iskugu tagtana aan u sameyno projectyaasha aan badino minimaal komende jaren in een 4-5 projectyaal cusub lagu soo daro Efsan si Efsan draagende kracht gemeenschapka ay noqoto. Aniga ma qabo stichting gooni ah onafhankelijk ka ahay waxaan meesha u soo istaago waa inaan dadkayga Soomaalida fiiswiila ugu shaqeeyo ilmaheygana ajirna ilaa iga siiyo idinkana maxaa la aasaas idin markas idin garab istaago. Ik zou dat heel graag nog 3 jaar willen doen en dat ga ik ook zeker met alle doen. doorashadu mar walba waxaan isku daynay inaan si cadaalad ah u sameeyno oo ka hortagno wax kasta oo carqalad ku noqon karo. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaa kasoo qaybgalayaasha ururada dhammaan ee dalada ka midka ah. Si fiican ayay noogu dhacday doorashada. Nidaam ayaa la sameeyay anagoo 3 qof ah oo ka mid ah guddiga doorashada. Waxaan la shaqeynay si ku meel gaar ah guddiga hore ayaa waxaan kula shaqeynay inaan ka caawino farsamada doorasho iyadoo cadaalad la raadinayo. waxaan kandidaadka doorashooyinka ama dadka isoo sharax musharaxiinta aan u diidno xogta inaan la wadaagno maadaama ay sharaxan yihiin guddiga hore. Alcamo doorasho si fiican bay noogu dhacday 8 qof ayaa isoo sharaxday 1 qof ayaa dib uga laabtay 2 qofna meesha bayna imaan. Marka waxay noqotay sharciga Efsan u degsan oo ah 5 qof oo guddiga ah. 5 qof ayaa ku soo baxday doorashada iyaga ayaana hogaamin doona 3 sano ee soo socoto. Wixii ka dambeeyay ayaan isaga imaan doonaa iyo kulan dambe oo doorashooyin Soomaali mar walbana midnimada iyo wadajirka Soomaalida ayaa muhiim u ah dalada Efsan oo ay ka mid yihiin ururada Soomaaliyeed dhammaan ee halkan. Maanta waa maalin oo mataqaanaa nasiib badan qorshaheena iyo doorashadeena waxay u dhacday sidii la rabay oo mataqaanaa si nidaam ah dadkii is wada xushmeynaya aad ayaan ugu faraxsanahay maanta sida si wanaagsan ayay noogu dhacday. Mataqaanaa maanta waxaa nagu soo biiray guddi cusub guddigii hore qaarka ka mid ah ay sii waday dhalinyaro cusub aa nagu soo biirtay. Waxaan u rajeynayaa in mataqaanaa ay wax ka bedeli doonaan mataqaanaa habka hadda loo shaqeeyo. Waan isleeyahay dhalinyarada cusub ee halkan ku soo barbaartay inay wax badan ay ka bedeli doonaan maadaama ay halkan ku dhasheen ay yaqaaneen dhaqanka Yurub ayna yaqaaneen dhaqanka Soomaaliya iyagoo isku geynaya labada dhaqanba ka qaadanaya wixii fiican. Waxaan rajeynayaa mataqaanaa inay wax aad iyo aad u badan ay ka bedeli doonaan.